عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال إدل كيمبا كسر وذا برامج جارة أو كفلانقين إنه هداه يدقن كصومالي ذا جار هنا صومالي ذا كنا ردل كان كوفر أفريقيا برامج كان ماتا وحن نكجسو تبينينا تلفزيون كقرن كصوماليا جار هنا ماتا وحن كسر بغضي حرنتان لو كيديو هداه يدقن كصومالي ذا وحن نسيبنا كل ماي maamulaha xaruntan oo lagu magacaabo Ibrahim Qaxwo oo dhinacayga bidix fadhiya sidoo kale waxaa nasiib u yeeshay inaan magaalada Johannesburg booqashada aan ku imid kula kulmo saaxiibkay Cali Dhaqan oo ah wiil dhalinyaro ah oo dabcan ku caan baxay hidaha iyo dhaqanka Soomaalida isla markaana ah fanaan yar oo qaada heesaha wadaniga dabcan barnaamijka waxaan ku falanqeyn doonaa labadan ruux aad u jeedaan dabcan oo muwaadiniinta Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika ku nool isla markaana muujiya mar walba hidaha iyo dhaqanka Soomaalida asal ku leedahay dabcan marka hore ku soo dhawaada barnaamijkan gaarka ah oo intuu talagalay telefishinka qaranka Soomaaliya haddaad tihiin maaragtaa labada qofood ee isku xilqaamay barnaamijkan xiisaha badan oo bulshada aad u jeclaystaan in walba aad kaydisaan thank you watahay marka hore aan ku hormaray Cali Dhaqan dabcan Ibrahim uu idin been doonay maadaama aad tahay wiil dhalinyaro ah oo hidaha iyo dhaqanka ku caan baxay horta goorma soo bilowday goorma soo kugu dhalatay inaad maaragtaa dharkan hidaha dhaqanka aad muujiso xilli walbana aad taagnaato nin ku adag dhaqanka Cabdullaahi waa su'aal aad u fiican assalaamu calaykum horta su'aashaas horta su'aal aad u wanaagsan waaye hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waa wax loo dhashay wax la iska dhigo ma aha insha Allah ta'ala waxaan u qaatay meesha aan joogno qurbaha aan joogno ayaa ay keenay mar walba inaan muujiyo hidaha dhaqankeena Soomaaliyeed inaan ku qaato taasoo sababtay inaan ku qaato watahay marka ma xasuustaa taariikhan xilligii kugu dhalatay barnaamijkan inaa bilowday xilligii aan ogaaday muwaadin Soomaali sax inaan ahay watahay laakiin taariikhda wali ma xasuustin adoo dabcan hidihi dhaqanka wata aragto أنا ودي هذا أنك وتو أيام. وتاي إبراهيم أديكم كوسو لابنا يعني بل شرحات النجاسي قبضنا تكوكيسون هداني دقنك. بسم الله الرحمن الرحيم إبراهيم محمد علي وحن أرد وحن هو إلى دار الصوماليات كونفور أفكار وحن سوق لتوتو زنكا لبضكم وحن كشغل جبرجولي وحن أنا شغال يعني برا البيتر أما باتلمير تذكر باور ترنجير waxaan u gudbay markii waa 2008 ka 2008 ayaa sanadkood wax yar nagu dhacay waana la dhacay waxaan jeclaystay markii inaan waxaan iska dhaafo dhaqankeyga iyo deegaanka inaan u soo laabto Soomaaliya markaan joogna aad aan u jeclaan jiray inaan hidaha dhaqanka diyaariyo alaabtaan waxaan soo bilaabay 2008 ka wixii ka bilaabay ilaa maanta maalin walba mid aan ku soo daraa meesha watahay marka sidee kugu suura gashay inaad kaydiso أما أذكر شغلات تنقل طبعا أخلاق أدو قالي أو أنت بدن كفر أفريقيا لقي يابنا القركود لقيلين إنه سيدك وقصورجش. بدن وحلا كنا Soomaali waxaan ka keenay Soomaaliya dadka oo saaxiibadeyda aan dadka ka ganacsada oo baasaboorada leh ayaan u dirsadaa oo ka iibsadaa markii ay keenan lacag badan ku siiyaa lacag aad badan way ugu fadhidaa alaabtan وأنت مركب عقبات أنا كنت بجرا إن حلقة سوق هذا سوق عقباتها سيدا مركب سوق هاي سيدا توريدا إيو أم بس سيدا وحي على ورقة هي البركة اللي حاجة ودا محا مددا كدربتها ما يرنا وعربتها وهدي دقنك كان هذا ذي وقار كل هذا وأنت إن علي إن طبعا إن سود أفريقيا كنا شاهد مع أضو يربى كانت بسعي شكتي إن هذا تيما حاجة طبعا ويديسين لا حد يدافن أو سيدك يور هداية لكن كسومالي لقيه قينة إن سيدك وصور قشين ماذا حاجة تعرف مركورة تنتظر ديسين لها كان جاسيسي. والله وحاجة بصورة تقولي هدية لكن كنا سومالي مركن دي إيجو دتك هراء أيانا تبراعي أي بصورة تقولي ودتك إنه هراء هدية لكن كبت قاب كان أيه أنت ما وديسين جرين تنتظر واحدة بعيسى ما خبطه مركا دتك هراء إنه صح حسنه. وتهاي طبعا Soomaali markii la joogay dadkii hore sida la sheegay waxay isticmaali jireen in madax ama timaha ay daayaan oo kale soo galooda hadaan la qaldaneyn marka halkan South Africa ah laga ma helo in maaragtaa barnaamijkaas la helo oo la maritintii lana kobciyo adiga marka sidee kugu soo gashay marka ma waa la helaa oo yani maaragtaa alaabtaan oo dhan hadda soo wadanka laga ma helin Soomaaliya la keenay waxaan la heli karin mal wax walba qarash iyo waxay ku xiran yihiin dadaalkaaga marka adiga waxay ugu suurtageliyay
waxyaabihii lamid ah ayaa mariyaa tinta yani saliidda oo kale iyo maaragtay saliidda hadda qabolka oo kale saliiddiisa waa mariyaa ilaa meeqii kugu qaadatay marka inaad ilaa heerkan gaarsiisid ilaa meeqa sano camal muddo 2 sano ayay tahay tintayda hadda muddo 2 sano maada jarin maana jarin waxa maada ku sameyn waxna kuma sameyn waa tahay marka cimilo maaragta Soomaaliya ku duulaya dalkan ka jirta waa laba xilli oo maaragta kuleel zaid inuu jiro ama qodob zaid inuu jiro dabcan labada xilli waxa laga yaabaa marxalado kala duwan oo qofka bini'aadanka ah saameyn ku yeeshay taa gaar ahaan dadka yimid dalkan sida Soomaaliya kale ka yimid oo cimilada iska fiicneed oo kale adiga culays badan baa ku saaran tintiina kugu baxday kuleelka zaidka markuu jiro kale ama qabowga zaidka kale markuu jiro dhibaato kala kulantaa ما والله واحد دبعتها كلام بكل موضوع برتانا والله قبصة واحد دبعتها يقوه يصدق عادي بدي دبعتها يقوه يسمر رانجر لايف واحد دبعتها يقوه يسمره وات إبراهيم أيوة كوسو الله بنيا إن طبعا مجا قحوة كلا إن وقحوة الصومالي الاستعمال الجري الصومالي مركز جوب تميل وبيجر مش أنت مركز تميل الوبحي سامر ربط هذا ما شت تي في آخرن كم دامو ماشي مقصود بقولي تي في بدن أودك أي جران نوع ما هو هذا هو فرحسنا تي في آخر سبب ها تي في آخر هذا هو فرحسنا ما دام نوع ما هو قرن كان ويا أنا جنا علابتهم جعله ولا جنا جيو قرن كسودان دولة الصومالي أما دولة ودك الصومالي نوع كعلي يلا علابتنا alaab aad iyo aad lacag badan ugu fadhiso dadka markay dukaamo iyo hoolka ku jiraan aniga waxaan aroonay alaabtan midaan waddanka ku jiray midaan Kenya jiray iyo waxaas wali alaabtan waxay kaga bedelanta alaabta kale kulli wax oo aad iyo aad oo waqti dheer jira way ma aha wax alaab qadiim ah wala samaha alaab oo darad dawla sameeyay meelaha laga helo ma waxaan raadiyaa mar walba waxaan raadiyaa alaabta qadiimka ah sida bakoorada camal ma marka hada jaanees sameeyo bakoorada noocan oo kale laakiin ma aha noocan oo kale sida tooshkan waxa laga keenay Soomaali magaalada Kismaayo lacag badan ugu fadhiya lacag badan inta ku imaaday marka qaar waxay leeyihiin waa ka ganacsataa maya kama ganacsada waxaan rabaa in caruurteena iyo dhalinyarada Soomaaliyeed amba dhalo ilmaha inta ku dhashay amba kuwa qurbaha ku soo koray inay arkaan hidaayada dhaqankii waxaan leenahay alaabta aan wax ku cunno magacan qaxan waxay ugu baxday 2008 ka ayaa sinafobi waa laga dhacay alaab aan haystay waa laga dhacay marka laga dhacay ka baxshay waxaan dhashay magaalada maxaa ku soo kordhin kartaa maxaa fani ka dheerta markaasaan waxaan meeshii waxaan galay in aan qaxwo galo qaxwada waxaan ku bilaabay darmuus inta xaafad ka soo qaatay iyo laba bakeeri aan ku bilaabay maalin waxay ganta 3 bakeeri maalin 2 bakeeri maalin dambena waa waaya markii dambe qaxwada waa la qabsaday marka waxay noqotay in oo leeyahay Ibrahim qaxwo aan qaxwo ka socdeen magac saas uu soo gaaray meeshii hadda ilaa iyo waxaan sameeyay 3 branch oo Ibrahim qaxwo leeyahay dad badan ay codsadeen inay wadanka geeyaan waxaan diyaar u nahay laakiin wadanka xogaa waliba waxaan diyaar u nahay inaan wadankeena geeyno waxaan inaan ka dhigan rabnaa waxaan inaan ka dhigan rabnaa waliba franchise sida KFC sida Nando's عمل سيدا كمبني ذا وين عمل كمبني وين جيران كذا واتها مركا دad kasaas hadii kugu bixiyeen oo magac xilligaas uu ku soo raacay magaalada hadda joogto kale Cape Town xarunta weyn ku taala Johannesburg raadi xarunta weyn ku taala labada branch oo kale ku yaala ayaga isla Johannesburg kaliya Johannesburg ku yaalan waxa la qaxwatu qaxwatri qaxwana tana qaxwatu waxay ka furnaan jirtay safaaradda xogaa safaaradda marka dadkii ay yaraaday oo ka soo xiray laakiin qaxwatu wali way shaqeynaysaa صح واتر marka halkan qofka markuu soo galo dabcan durbo wuxuu dareemaa waxyaabo kala duwan oo lagu aqoon meelaha kale ganacsiga ama meelaha kale sheekh laga cabo kale kulli waxa ku suran ama ku xardhan waa alaabihii dhaqanka qofka markuu soo galo aad u jeclaysanaa marka qofka aan aqoon kala magaalada ama magaca aan aqoon soo gala oo arka سؤال بدون على جبل سويدي ده سؤال كويدي مجرى لو كنا هاي أرنتان محل هاد ماشي محله كتر جل مشيح بقى مثلا اللي ده لغة لو كذي عادي مركا دتك المدام حتى شغلون كي كله وحن غبغدان إن عن وحن أفسره عن بحن أول شيء مرمر خارج برنامج وحنا جلس وياه إن دتك سير في سعود سمينه عن شاك قدنا عن بقحوك قدنا عن بوحن سمينا سيد حلوة رجيها سمبوسيكا مشمشكا وحلي رضيعون ودتك الصومالية قرناها وحسن سمينا مركو وحسن تاشقوني وحيجي استخدم مرمر خارج إن عن عروض أشرحه وليبا حي ماذا وريال بدن وين ودن كأم بقو بناك كوب دبت حتى تذكر جيرس أي بوق نقرتي سدا باشا مكسو قاري وحن أنت يلقى شيء وعص صح وقتها مركا إن هذا عرفت مصر ولا كله
haddaa geeskaas kasoo bilaawno hal mar wax yar sharaxaad oo naga sii kartaa oo mid mid عادي maxaa kamid ah aan ku sheego jacayl geeskaa mid kasoo noo kale oo usha geedkaas waa qaar geedka kalena waa waxa la yidhahdaa kristiinka Soomaaliya isku dhaqanaya laakiin cid walba waxay u taqaanaa kaas waxa la yidhahdaa qulo amba ubaa la yidhahdaa kaas duruun amba waxa la yidhahdaa bud saa u taqaani kaas waxa la yidhahdaa shareero kan waxa la yidhahdaa kabaha indhaha Soomaaliyeed waay ninka odayga arkiisa waa siyaad bare kalluunka waa kalluun laga keenay Soomaaliya wuxuu ku dhashay dariga iyo badda meesha u dhexaysa meel la yiraahdo goobeen ayaa laga keenay waana la qalajay kalluun live ma aha mid caaga ma aha okay kalluun waa mid noolo maaragta والله xagga laga keenay waa حق بدك يا waa tahay saacadda kale ayadoo ما ساعات انت كسمينا سؤال ساعات حق ما قاعد يبرن قحوه انه قرنا كم وجه okay صح waa tahay marka faantan oo kale gees kan waa gees kalooda anaga aan leeyno gees hada dheeraa waa صح kana durbaanka bromburka iyo waxyaalaha marka roosada aan qonay ku ciyaaraan waa tan gees kan waa taqaanaa toobinka waxa lagu saara kaasna koorti waa koorta geela oo marka koortaas waa tanna argoostada wadankeena laga helo markaysa tanna waa raadiya aan dibisi ku dhageysan jirno tanna waa musafti ambo حارين صدق صدقان بونكاس نحواي waxaa loo isticmaalaa marka oo dagaalada markii dagaal jiro nooca loo yiriya markii oo aroos jirna nooca loo yira marka shir jirna design loo yira marka dhabaaq oo isku afgarto Soomaali isku afgarta ayaa loo yiri waa tahay sawiradan oo kale ayaguna lacagay kala duwan ee Soomaali laga isticmaali jiray qaarkood ka muuqda qaar waxa ka muuqda daawadayaal sidaad u jeedaan ba dumarkii Soomaalida ah oo dusha u xirtay maaragta shaqooyin kala duwan adiga miyi ka jiray dadkaas waa dadka beeraleyda oo okay waa tahay marka qaybtan oo kale ayaguna xagga waxaa iga muuqda korduntii xagga waa ma garan karo xaaqin baa la yiraahdaa taas korduntii oo taas waay tanna miisaan waa tanna babisa la yiraahdaa tan waa odayaashu waa suunka xiran jiray tanna waa jar la yiraahdaa geedkaasna waa geed qurac waa geedka meesha ku arkaysa qurac la yiraahdaa Soomaaliya laga keenay asagana qurac meesha laga helo quracaas darteed Soomaaliya laga keenay maradan waa maradii aliindiga aad taqaanid oo wadankeena la isticmaal jiray aliindi la sameyn jiray tanna kurbanti kala waa alaabta militariga qaadan jiray waa aragtay sida براشة أبو كوفيدا كبار سؤال كنا كبير إثيوبي وصومالي من كورنيل أوتي وإثيوبي صومالي دتك دجاج لو قالوا حتى تخني كورنيل أو صومالي أوتي أنا ما قلت شيء ما جعلي بس هذا شيء أنا هذا صح كبير اللي سوى استعماله كبير اللي سوى استعماله كم ودانتي ودانت أنا لو صدق إنه ودانت بدنا حلقة اسمها عوز بدنا حلقة اسمها مغار بدنا بلاستيك تاير باور تلو اسمه تنواتي أو ريسي وحاجة اسمها ستة عوز عوزك سميستay tanna waa alaabta oo subaga ibraahim lagu keedin jiray kaasna waxa la yiraahdaa argaleen abo xajeerada waxa lagu cunay kanna wuxuu metelaa qabaan hadaa taqaan sida xoolaha lagu waraabiyo amba dar labada bis loo yaqaan dar amba qabaan la yiraahdaa kaas kanaacada isaga buufi jirnay saqaftaasna waa gabdheena ayaa ku shalnaysan jiray tooshkaas beeraha ku waardiyin jirnay idinkaas waa idinkii gabdhaha uunsiga amba carabta ku sameeyay jiray guriga amba ayaga timooda كواسنا وكبير رميق قارن جري كاسنا وقلدي كلا وكسيد بس كاسنا وقيس كنا وحلي رادا إنه قد اليرا تاسنا وركز التوري الله يقن أمبو مدي عاست وحواي وحنا اسمه اليرا هذا تنوى كر سدا وحنا شيء كله وحنا سماش قاعدة يبرا كانوا أشونكي ساعة كستوسبتي كنا وقلنا وحنا صحنك اوكي بالكا كلوا كلوا ميل واحد سلام تقانين يقول لي قولada kulli qof walba si uu garanaya kaasna waa aragtay sida coca cola wadankan markaan joognin sanduuqyada lagu keenay coca ay ka mid tahay kanna waa xirmada ambo anaga boorsi wax qaadan jirnay waxaan qaadan jirnay khariirad ambo waxa uu jawaankaas alaabta ku qaadan jirnay waa tahay marka dabcan alaabo fara badan oo kala duwan ayaa meesha yaala dabcan intooda badan Soomaaliya ka keentay say sheegtay dabcan qarash fara badan baa kugu baxay oo soo koobi karin maanta Soomaaliya alaabta laga soo qaado mid walba halka laga keeno inta lagu jiyo qarash fara badan ayaa qaadanaysa sidoo kale
qof ku caawiyaa jira oo maaragta garab kugu sii inaad barnaamijkan kaydiso oo maaragta hawshan kula qabtay maya wax igu caawiyo ma jiraan ilka waxaa jecel caruurteeda qaar igu caawiyo oo markay meelaha wax ka soo arkaan waxay la aaba maal wax hebel oo adiga alaabta qaadinaysa oo kala meelaha siyaalo laakiin qof kale igu caawiyo ma sax wata baalkan asaguna dabcan alaabta kale meel kala duwan ay suran tahay oo way adag tahay in la soo wada dejiyo qaarkoodna meel ay ku xiran yihiin maadaama dadka ay intooda badan jecel yihiin haddii alaabaha dhaqanka ay arkaan inay qaataan oo soomaalida dhaqanka aad u jeceshahay laakiin inay keediyaan aad ugu adag tahay marka baalkan iyo alaabo kala duwan oo miiska saaran oo gacanteeda ii suura gashay inaan ku qabto sida baalkan oo kale dabcan magacyadooda ma wada garan karo laakiin ibrahim qaxwa noo sharaxi doona daawadayaal alaabo kala duwan oo saaran xitaa qarihii soomaaliya oo kale ugu yaala tufaaxa soomaaliya xitaa qaarkood meelaha qaar inuu ka baxo waan jeclahay bahalkan waxaan filayaa barkin inay tahay laakiin anigu ma soo gaarin online daawadayaal barkinta soo barkin ha timaha sidaan timaha qofkaas ninka timaha weyn leh inuu timihiisa aan dhulka ka gaarin ina diismin allahu talgal qoortu saa ugu qabanay marka sidaas uu saacay timihiisa mar walba ay u taagnaadaan sax waa tahay marka ibrahim alaabahan kala duwan marka laga soo tago maxaa kaloo dhaqana oo meeshaan maaragta aad ku kaydisaa waa arkay alaabaha kala duwan waa arkay qalabkii hore waan arkay wax kaloo dhaqan oo aad keedisa ma jiraan dhaqan sida waxaan keedinaa hadda sida ardayda markay jaamacadaha dhameeyaan waxaa leeyahay diin dhaqanka keenaan leeyahay ardaydan raacna waxaan ula sameeyaa sida canjeerada cambuulada oodkaxa suumowga soorta bunka waxyaalo badan ayaan ku caawinaa dhalinyarada oo weliba sanadka cayaaraha hidiya dhaqankaan geynaa hal sanad waxaan ka qayb galnay 2 sano hal sano waan kusoo guulisay number 1 aan galnay sanadka labaadna number 2 aan galnay waa tahay marka maadaama kaalmahaas aad gasheen oo kale kaalmahaas markaa gelayseen oo kale ilaa mise dal ayaad la tartamayseen marka sanadka hore waxaan la tartamayna 33 dowladood waa tahay alaabahan qaarkood markay ka soo galaan shaah cabayaan ma laga yaabaa dadka inta ka codsadaan inay qaataan marka oo ay meelaha doona la aadaan weli alaaba ma waxaa dhuma markaas sida ka soo qaad maraa wafdi imaanay amba sida ayaanta safaaradda la furay oo kale oo safiirka amba gaafo noo imaanay alaaba meesha la geeyo dadka martida amba dadka noo imaado amba meelaha hita aan geeno meelaha lagu xadaa wax badan hadda iga maqan waxyaalo badan ayaa si la sii qaano dhalinyaradu waxay jecel inay qaataan laakiin ma kib gareena sax waa tahay waan kugu soo laaban doonaa ibrahim cali dhaqan alaabahan markaan fiirinay qaar badan waxay ugu soo dhacay adiga loo baahnaa inaad isticmaasho laga yaabo inaad haysato marka sida shalladoo kale oo dabcan dadka timaha badan leh way ku adagtahay shallooyinkii yarana isticmaal halkan ka jiro kale shallooyinkii waxay ku isticmaali jireen qoriga sida taa oo kale ama mid ka weyn taa dumarka ku shalaysan jiray soo ibrahim waa tahay marka mid kalaa jirtay oo weyn oo raggu ku shalaysan jireen oo kale qaarkoodna madaxay suran jireen adigu see ku hesha taas seen ugu soo gashaa waan haystaa cabdullaahi oo anay naftiga dalka soomaaliya ka dalbada shalladaas waan haystaa gaariga ii saaran tahay hadda mar walbana waan isticmaalaa يعني ورنتا شللا كلا لما لو شللا كلا شللا سعد وين وكلا لو شللا كلا تمي أما واحد ميدا وكلا يعني ما تمثلها أنا تكون شللا يسوي وقتها بركنتو كلا كون أيضا سيد الشيء وتنلقص حد وذاك تماها بدن لي ما رح استعمالها وأنا استعمالها بدنا مركز عادي ما أقصي حتى مس حافظ مركز جوكتو كلا هذا أسكت استعمالها ما حفظ مركز جوجو يعني ما واسكت غنا ودنا جوجنا لكن عادي أسكت استعمالها يعني مركز هدية دخن كسب بندقينا استعمالها معناها أي تهم ضدك أوتوسا ولا جديدة هي ضدك أجانب. ما صدق علي إن إبراهيم أبو دبنتي إن وحربا إن هذا بل سود أفريقيا كلها جوتشا إن وحيلين دكان يهدأ وجارة إن سومالينا طبعا هدي دكان وجارة لهن إن هل كان أتكون إنسان وكيدسان مركز إبتو كله إن فرقية ودحية إن دكان كو طبعا وعرفت دكان سود أفريقيا كو شنيتو مثلا هل كان جوتشا إن حلقة أخي إن مرت حب بدن أكيسو marka farqi inta laga u dhaxeeyo isleeda alaabta horta farq weyn u dhaxeeyo alaabta afrikaanka kale iyo alaabta Soomaali isma laha hadda kan amal sida barkintaan barshinta amal way jirtaa laakiin tooda waa nooc kale oo wuxuu dhaxeeyo iyo saas wax leedahay marka isku dhaqan markay arkaan ayaga aad ay alaabta oo la dhacaan aad ay uga helaan bilib sida cadaanka noo imaado sida joornaal badan noo imaaday wariyaano channel badan na wareysteen marka
way aad uga helaan sida hadda marka aan jaamacadda aan tagno kale meesha aad iyo aad loo soo gala sida cuntadayna aan ka dhex galo wallahi su'aashaasaan waxaan uga dhex galayaa su'aasha dhaqan waxaan ku kala duwanahay dadana marka hidiyo dhaqanka isku tagno يعني قار يعني هدي دقن كنا مركان جينا كوضنا عرقنا أنا كقوض ولا يابنا ضد باقة قاون صح يعني هدي دقن بيسدان لليه أو يعني ما أو يعني عاد وقاون صح أنا كنا كينا واقو أسطورنا ولا أياكي قاوناي با كينا ربابا صح صوتو كينا وإنه كيف عيان ساس بقول واكرت عبد الله إن إبراهيم وحجرة وحياة بدن وضد كان إن حد جلو كلا السيا بكرة دون استعمالها مقاعدة هورا اللي يبدلوا كلا تصالوا أف سومالي وكلا ريال أسمه وكلا لوسو درجيران تصال هذا ما ركتا وحياة كسوق هذا نوكلا نكوي هذا بل سدح ذا الشيء هذا هو تصال ساعدة iyo shaatigo kale af Soomaali noo shaqada ku dhaw dhalinyaro yar ku daawanaysa oo qaar ku dhaliyaysa laakiin oo inta uu taqaan waxaad u sharaxay sax waay af Soomaali wuu jiraa af Soomaali laga soo tagay marka hore hadda sida saacad oo kale saacad la miro af Soomaali waxa la yiraahdaa isla eegto aw gooraysa la yiraahdaa shaatigana waxa la yiraahdaa aw gooraysa la yiraahdaa af Soomaali labada gobol labada dhinac ee koonfur iyo waxa alwaas wala kul yaqaan waxa la yiraahdaa isla eegto aw gooraysa saacad la miro saacad waa aftaliyaan sida dadka soo qaat شاتي في صومالي ما وحلي راد فقشة اللي راد ما في صومالي وحلي سروالك وحلي راد فقشة اللي راد ما إن سروال وحلي راد أفقلاد صح أحيانا بدنا أيوة ذاك مرة خاركو سوق بسنا رجل سلع عشرة قراعة يقذوا كلا أيوة في صومالي مياه مسوا حواي عشرة سنة قراعة وحلي راد قراعة لبوا بالله اللي راد دميتي على الأقل إن لك أنت بدنا نحس ويدينا يعني مجا على لكن سيدو كوكو بحي iyo magaca uu saddexan bal ayaguna waxay noo sheegay magaca uu saddexan waa Ali Macalin Maxamed Sahro ku sheegay ala dhaqanna waxa ay bixiyay Soomaalida Ali Soomaali Ali wadani ala dhaqan saddexda Soomaalida ay ugu yeertay badan hadda meelaha hormarayo kan i garanayn yani muuqaalka ay ugu mudawriyaha Soomaali ama wariyaha wadani ولا دقنوا وحساسي وعلى دقن ساسي جودي صح على دقن ساسي هو بحنا وهذا وما صنت هذا وديال إن برنامج كان مانتا وحين كيسو تبينينا إن حرنت لو كيديو هدها يدقن كمقاعدة أما هذا إن جوبتان إبراهيم قحوه أما كمبنيجان هذا بتكمبني طبعا ما دام سدح الله أفر أيهن إن إبراهيم قحوه وكيا لما قالوا جوهانسبرغ إن وحا طبعا تاجن أو ماركتا مركان ورثي قاضي يوكله إن أدو صدوبتي دد كلا دوان أو ماركتا إن كاستمر واه أو ماركتا معامل واه أو حيوان كلا دون كي بنا أما قربتي أصلا دونتو كلا قحوة إيو بسكوت كي حلوة وحيابها الصومالي أدو إن استعمال جرت مركز الصومالي اللي جوجي إن سيدا درادي ده حاجة على استينا نقار كم يدات كما قربتي جوجي إن بلسيو فرصة غير وان سؤال أيقونو كويديو إن طبعا محكم بالله دونا تريب كان ويلكفلية marka hore magacaaga inoo sheeg aniga waxaa la yiraahdaa maxamed cabdiraxmaan laakiin dadka waxay yaqaaneen shamsudiin waa tahay adiga magaalada reer Johannesburg aad soo aniga reer Johannesburg aan ilaa ku dhawaad xaruntaan oo kale ilaa ay samar ayat maalintii meeshaan horta aniga reer Johannesburg aan ahay dabcan meeshaan dadka Johannesburg u badan inta hatta meeshaan waxay noqotay in dadka gobolada ka imaanaya ay isku balansadaan ay dhahan Mayfair markaa soo gashay inta ka joogta Ibrahim Qaxwi igu imaaw وملك قفان أقول مرة ماشان فهمت مركب ماشان مال أرجع عن بدنا ضدك عن جالس بيك الأقول أو قبلا صدوها واضح على الله يلو كله خواص كتغنى فينا طبعا نقاوض فينا فهمت يا بدنا على غير بدي بهن لكن مالها فرشة حق حبرة وارك جري واضح لكن ما عندنا حقا ويلا هذا عايز في نعسو كله هذا كسب بلادو كله سدح شيء ورسو كله ما عندنا نقطة نشأ محلو شيء والله تصرت اليوم بوع القبض اليوم ورجلبوها كرنا وبينا ما فرقين تعملوا طبعا waxaan kaloo ka aqaanaa midaas kataarka waa ka aqaanaa shareeradaasna waa ka aqaanaa ubadaasna waa ka aqaanaa oo biyaha lagu shubo waa tahay laakiin waxyaabo kale kugu adag ma jiraan wax badan waa tahay haye wiilka ku xigo kale magacaaga cabdikariin cabdullaahi cabdikariin adiga reer Johannesburg ما يعني قبل كيما قبل كيما مركا ماشان المركا هذا كلام إن لقن كان يحيى كان حاضرين هذه هذا هو فرح لقن كان ودكين الصومالي إنكم أكل متحف ما أنا أراك ماشان كبرت
واتاي مركا الله هي لو كله إن وحاليا قاركود الأسودين يسوع قار مقعدين تلقى قارنا qaar badan aan garanayo oo ku jira qaar aan green oo ka buuxan واتاي مركا هذا ويدي سوق لك مش شقي على كل شيء marar badan aan weydiiyay Ibrahim Qaxw oo noo sharaxa mar walba واتاي لو جيس كان هذا كسر قانون كله إن أما يراد كريبتو كله سيد هذا شيء وقارس وكله حملوك شيء كتير meeshaan waxaan ka garanayaa iyo muuqdo torreyda iyo waranka iyo ubadaas iyo idanka waxyaabo noocaas اوكي انت صورك halka lagu baray Soomaaliya oo kuwa soo ran garanay hala waqti kale qaar kale badan aqoon ma jiraan qaar badan waa taayirka ku xiga magacaga waxaa la yiraahdaa Xuseen Cabdi sin ina dashan qarow mar walba waa imaadaan madaxayda maalin walba beesha dadka ka shaaha ee imaadaan ku midnaa waqtigu aad u weyn dadka jecel su'aalo weydiiyo qaybtan oo kale markaan kasoo qabano alaaba saaran oo kale wax ma loo sheegi kartaa alaabahan iyo magacyadooda kolley Soomaalida qolaba magacay u taqaanaa laakiin anigu wax badan aad magaca u taqaanay magacyada saddexda kor oo kale tusaale markaan bahalka iyo Bobis kaas oo kale kan oo kale suunka dhexda lagu xiranayo oo kale weysada oo kale waxyaabahaas aan ka garanayaa wata guud ahaan daawadeen intaan ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkan gaarka ah oo lagu talagalnay maanta aanu ku eegaynay xaruntan hidaha iyo dhaqanka ee Soomaalida ku nool magaalada Johannesburg ku leeyihiin gaar ahaan Ibrahim Qaxw oo barnaamijkan u suuro geliyay bulshada Soomaalida ku nool magaalada Johannesburg ee dalkan Koonfur Afrika sidoo kale barnaamijku waxa kala qayb qaadanayay Cali Dhaqan oo asaguna ka yimid magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika oo aan isku magaalada ka nimid balse aan ku kulnay maanta magaalada Johannesburg barnaamijkan waa Cabdullaahi Qorshe ayaa idin tabinayay